wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland Axmed Diiriye Toorno ayaa maanta bilaabay qaybinta buugaagta kala duwan ee manaahijta qaranka ee loogu talagalay ardayda kala duwan ee dalka wax ka barata gaar ahaan ardayda dawliga ah. buugaagtan ay tiradoodu dhan tahay 309,261 buug. munaasabadani lagu anba bixinayay gaadiidka kala duwan ee uu anba baxaya gobolada dalka ee buugaagtani qaadaya ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha waaxda waxbarashada. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska ah ee wasaaradda waxbarashada Somaliland. maanta way bishu tahay 12kii bishii 10aad 2023 waxaynu iskugu nimid inaynu wareejino aynu rarno buugaagtii ardayda dugsiyada dawladda ku jirta ee hoose dhexe sare ee gobolada dalka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaynu maanta sagootiina buug ay tiradoodu dhan tahay 309,261 buug oo ka kooban dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada sare oo loo geyn doono dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland goboladeeda oo dhan. mudane wasiir labada wasiir waxa ay hawshan soo martay process dheer sidii loo geyn lahaa ee loo gaarsiin lahaa ardaydaasi. waxa muxuu ahaayay muddo laga shaqeynayay buugtaasi in la shaambadeeyo oo lagu sumadeeyo goboladii kala duwan ay buugtaasi lahaayeen oo ay shaambadeeyeen inay ka shaqeynayeen muxuu ahaayay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo saynisku. laga bilaabo maanta buugtaasi waxay ku wareegi doonaan goboladii ardaydu joogtay ee ay lahaayeen waxa si toos ah u gaari doonaan insha Allah ardaydii loogu talagalay inay ka faa'iideystaan buugtan gaar ahaan ardayda miyiga. buugtan waxa lagu qaybiyay oo markii la qaybinay lagu sileeyay baahida dugsiyada gaar ahaan gobol waliba ardayda miyiga joogtay uu leeyahay inta tiradoodu leegtahay ayaa lagu beys gareynayay. saacad wasiir maanta halka kan waxa laga rarayaa buugaagtii gobolada loo rarayay 12 gobol xafiiskii warbaahinta iyo xafiiskii waxbarashada tooska ah ay khuseysay wasiir ku-xigeenkii xafiiskii degmada intuba xaadir bay ku yihiin waxay diyaar u yihiin inay buugaagta u sagootiyaan goboladii laga lahaa. dhanka kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uul ka socda hay'adda Save the Children waxaana uu sheegay sidii buugaagtani loo gaarsiin lahaa gobolada dalka. waxa kaliya oo aynu sabooteynaa raridii buugtii faraha badnayd ee aynu iibinay oo maanta aynu ku talagalnay inaynu u rarno ama aynu qaybintoodii bilowno aynu gaarsiino goboladii si goboladuna u sii gaarsiiyaan iskuuladuna ugu qaybiyaan ardayda. marka waa maalin fiican, waa hawl fiican, waa shaqo fiican. buugtani sida wasiirku sheegay waxay wax ka tari doonaan tayada iyo wax dhigista iskuulada. waxaan la rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo markay ardaydu si fiican u isticmaalaan buugtan in tayada waxbarashada ay wax ka tari gabagabadii munaasabadana waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland Cabdixakiin Bustaale iyo wasiirka waxbarashada Somaliland Axmed Diiriye Toorno waxaana ay sharaxeen buugaagtan iyo ahmiyadda ay u leedahay ardayda dalka. sidoo kale waxay la dardaarmeen gudoomiyaasha gobolada la gaarsiinaya buugaagtani. waa maalin qiimo badan oo halkan ay wasaaradda waxbarashada iyo halwadanadeedu ay u gudbinayaan loo rarayo ardayda kala duwan ee dalka buugaagtii ay wax ku akhriyi lahaayeen kana dhigan lahaayeen waxbarashadooda. waa horumar wanaagsan iyo dadaal ay wasaaraddu runtii samaysay oo uga mahad celinayno aragtida hogaamineed ee isku tashiga bulsho ee wasaaradda iyo halwadanada kale iyo hay'adaha la shaqeeyaba ay runtii qaybta way ka qaateen inay ardaydeenu helaan goobihii waxbarashada, inay helaan buugii qalinkii, inay helaan buugaagtii kale ee miisaaniyadda ama manhajka lagu tagay dhiganayeen. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waaxda waxbarashada tooska oo iyagoo dadaalkaa geliyey in la dedejiyo gobol walba loo sameeyo buugaagtiisi loogu talagalay oo waliba priority-ga la siiyo dadka ardayda miyiga joogta ee qaybtan way ka qaatay. waxaan kaloo runtii u mahad celinayaa hawlwadanada stoorka gacanta ku haya oo iyaguna ammaanadii loo dhiibay xafiday. waxaan ku adkeynayaa sida ay noo sheegtay gudoomiyaha agaasimaha waaxda waxbarashada tooskii in ammaanadaasi ay naga soo wareegtay ee gobolada markay soo gaadho ciddii loogu talagalay ay gaadho. muddo 6 sano ayaa buugaagta laga iibinayay miisaaniyadda oo la bilaabantay dawladda kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi baa la bilaabay 6 sanaba waa la iibinayay. shaqadii qarankana waxa la bilaabay waqtiga marka runtii waxbarashadeenu de maalinba waxbaynu ku kordhinaynaa
sahanka xog ururinta waxbarashada ee wasaaraddu samaysay waxaa ka soo baxay labada caqabadood ugu waaweyn ee carruurteena waxbarashada ka hor taagan mid inuu yahay iskuullada oo aan weli wada gaadhin oo weliba dhulka miyiga u badan iyo kharashka waxbarashada oo ka bilaabmaya lacagta iskuul maartay fiiga ee private ko kale oo ay ku xigto buugaagta la iibsanayo oo ay dressku la mid yahay marka inta aynu la fududayn karno ardaydeena inaanay caqabadahaas hor istaagin ayaynu iskuulla dhisidana ku dadaalaynaa oo intaa aynu ku dhiirigelinaynaa miisaaniyaddana dee sanad walba waa lagu daraa iskuullada la dhisayo hay-adahana intaa waxaanu ka codsannaa privatekuna ugu maalgeliyaa bulshadana ilaahay khayra siiye iyaguna way ku beeriyaan deeqo waxbarasho baynu samaynay oo caqabaddaa lagaga hor qaado carruurta waxaa la sameeyey qalab meelaha miyiga oo kale iyo ardayda maarata danyartaa loogu iibiyo shandadaha iyo dareeska inkastaanu weli wada gaadhsiisnayn mashaariicda qaarkood ku jira laakiin buugaagta ayaa qayb weyn ka ah markaa buugaagtana waxaynu nidhi berigii hore waxaa la siin jiray ardayga iminka laakiin dugsiga iskale ardaygu markuu fasalkaa ka gudbo wuu soo celinayaa iskuulkuu ku celinayaa si sanadka dambana uu arday kale oo fasalkaasi uu isticmaalo aad iyo aad baa u mahad cabdalle maxamed cabbaas wararka on cable t v hargeysa